isuduwaha wasaaradda dhirta iyo daaqa ee gobolka Sanaag Xuseen Cismaan Xuseen Talaahi ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Ceergaabo waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymo ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Sanaag isla markaana ku eedeynayay in isuduwaha xaalad abuur ka wado deegaamada xog xasasha oo ka tirsan deegaamada gobolka Sanaag waxaana isuduwaha shirkiisan sharaa'id ku sheegay in deegaanada xog xasasha ay dhul daaqsimeed ah isla markaana ku habooneen in laga sameeyo deegaamaysi ama magaalooyin waxaana isuduwaha isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisi ka mid ah waxaan idinku yeeli maanta shirkan inaan halkan ka idinka siiyo saxaafadda ka bixiyo arrin xalayto laga sii daayay TV-ga Royal oo ay sii daayeen beel ka mid ah beelaha ku nool degmada Ceergaabo gaar ahaan dhinaca bariga degmada Ceergaabo oo xalayto TV-ga Royal ka sii daysay war saliya raatoon lahayn kaasoo ahaa aniga ay gacanbareynayeen deegaanka baabiyey oo aan dhuxusha iyo geedaha iyo goynta iyo intaba anigu aan ka mas'uulahay oo aan u raro gobolada bariga ee Puntland taasoo beeshaasi ay waayeelkoodii iyo waxgaradkoodii ay ku dhamaayeen uu hogaaminayay Chief Caaqil Xuseen Xasan Cali Muuse iyo Cuqaashi ayaa waxaan rabaa inaan beenayo kana warramo qadadaas arrintaas u dhacday waxaa dhacday bishiina dhaaftay in 20keedii naloo keenay report haddaan nahay dawladda gobolka oo dhan haddii heer gobol iyo heer degmo iyo isuduwaya beked laga qodayo meel la yidhaahdo xoog xasasha bekedaas oo ay qodayaan nimanka la yidhaahdo beeshale urursuga ee qoday halkaa ka qoday oo aan degaan waliba meesha ayagu ahayn in layskaga horyimiyo laba beeloodoo kale ay ka hor yimaadeen oo beesha Gahayle iyo beesha Cabdixaamud ee deegaanka halkaa kuwii ay ka hor yimaadeen dadna markii wada hadleen safkaran waayeen warkii soo gudbiyeen oo u soo gudbiyeen gobolka ama degmada Ceergaabo barasaarka gobolka taliyaha qaybta booliiska gudoomiyaha golaha deegaanka isuduwaha wasaaradda nabadeynta iyo anigoo isuduwaha wasaaradda deegaanka gudoomiye ku-xigeenka gobolka intaydaas ayaa riboodkii naloo keenay waxaa la go'aamiyey meesha inaanu ku baxno waxaanu tagnay meeshaas oo lays hor fadhiyo oo qoladii urusugay ee qodaysay iyo qolihii diidanaa deegaankaas ay soo fadhiyaan waa meel dhuldaaqsimeeda waa cayowga la yiraahdaa meesha qaybisa iridda looga dhaadhaco marka cal iyo gobolada loo dhaadhacayo waxaanu go'aaminay haddaan nahay guddiyadii gobolka laga diray ee barasaabku ay amreen ay direen in la joojiyo berkada kadibna laga kala dareero meesha waxnaba meesha alla oo baa la galay waxa loo yeeray qoladii urursiga waayeelkeedii iyo waxgaradkeedii iyo chief caaqiladoodii waxa loo sheegay oo go'aan lagu gaaray in arintaas la baabiyo meesha oo la baabinayo aan la ogolaan iyadoo la raacayo sharciga wasaaradda deegaanka iyo wareegtooyinkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu soo saaray intaba la tixgelinayo inay meeshaas ku haboonayaan tahay dhuldaaqsimeed aan laga ogolaan dhul deegaan laga sameeyo ama berkada laga qodo nimankaas waa nimanka xal ka hadlayay TV-ga aniga cabaaraynayay waxay ogolaadeen oo aqbaleen in la baabiyo meesha taasoo waa laga saxay shibaa la isugu yeeray waa ta go'aankii laga soo saaray ee laga saxay ragii xal ka hadlayay halka waxay saxeen warqada guddida nabadgelyada gobolku ay ka saxday ay ku ogolaadeen in la baabiyo berkada lagana sameyn karin dhuldaaqsimeedka meesha la xoog xasasha iyo aageeda midna ma laga sarkaan aan madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya aan ogeysiinayo beeshaas xal halka ka hadlaysay inay abuureysay xaalad abuur beela kale isku dhacaan oo sheekooyin fog oo ka dhacay waqtiyadii la soo dhaafay ay dib u socdeen وبرخد محمود جديد تلفزيون كعالمي Carlson TV Ceergaabo